iyadoo dunida ay aad ugu mashquulsanayd dagaalkii dalka Ukraine ayaa mar qura waxaa bilowday dagaalkii marinka Gaza. Sheekada dhinaca kale ayay u weecatay dagaalkii Iiraan ayaa haddana dib loogu laabtay 2 jeer. Hadda xiisad kale oo cusub ayaa soo korodhay oo reer Yurub iyo Ruushka u dhaxaysa. Waxa la isku haystaa magaalada Kaliningrad lagu magacaabo. Magaaladan oo Ruushka uu maamulo waxaa maalmihii ugu dambeeyay lagu warramayaa go'doomin inay saarayaan qaar ka mid ah dawladaha qaaradda Yurub. Maxaa loo go'doominayaa? Maxay tahay magaaladan? Maxaana la isku hayaa? Aan kula wadaago macluumaadkaasi. Aan ku hormarno waa maxay magaaladan? Horta aan macluumaad ka ogaano magaalada Kaliningrad si kooban. Magaaladan ama gobolkan waa gobol yar oo Ruushka ka tirsan balse si toos ah aanan ugu xirnayn dhulweynaha Ruushka. Waxaana gobolkan uu ku yaala xeebta badda Baltic loo yaqaano, waxa uu ku yaala inta u dhaxaysa dalka Poland oo dhanka koonfureed uu kaga beegan yahay iyo Lithuania oo dhanka waqooyi iyo barigaba uu kaga beegan. Gobolkan wuxuu ka go'doonsan yahay Ruushka intiisa kale taasoo micnuhu yahay waa dhul wadan uu leeyahay balse ka go'an dhulka intiisa kale. Tusaale yar bal ka waran haddii magaalada aad joogtid magaalada ku xigta ee dal kale ay tahay magaalada ku sii dhaganna ay tahay magaalada dalkaada ka mid ah waa sidaas oo kale. Taariikh ahaan markaan dib u laabanno asalka gobolkan kama tirsaneen Ruushka wuxuu ka tirsanaa dalka Jarmalka waxaana xilligaasi loo yaqaanay Königsberg oo gobol Jarmalka ka tirsan ayuu ahaa. Magaalada marka waa magaalo muhiim u ahayd boqortooyadii Prussia iyo Jarmalka loo yaqaanay. Kadib dagaalkii labaad ee dunida midowgii Soviet ayaa qabsaday. Dadkii Jarmalka halkan waa laga saaray. Dad Russian ayaa la dejiyay. Magacii ayaa laga sii bedelay oo Kaliningrad ayaa loo bixiyay. Tan iyo waqtigaasina waxay noqotay saldhig military oo muhiim u ah dalka Ruushka. Maxay magaaladan muhiim u tahay? Marwa Fertility Center waxaad ka helaysaa daweynta xanuunada keena dhalmala'aanta ragga iyo dumarka. Ku dooro baaritaan la hubo, daweyn iyo beerista ubadka IVF oo la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo. Mahadsanid. Waa mid ka mid ah meelaha ugu istiraatiijisan qaaradda Yurub. Sababahan daraadeed, kow saldhigga ugu weyn ee Ruushka uu ku leeyahay badda Baltic ayaa ku yaala. Waxaan halkaan la geeyay maraakiibta Ruushka, gantaalada ridada dheer, ciidamada cirka iyo kuwa dhulka ee dowladda Ruushka iyo nidaam difaaciidka dhanka hawada S-400 oo Ruushka uu soo saaro. Waxaan halkaasi fadhiya waaxda ama guutada ciidanka Ruushka ee badda Baltic loo yaqaano, waana ciidan aad u tababaran. Magaaladan waxa kale oo muhiim ka dhigaya waxay ku dhowdahay wadamada gaashaanbuurta NATO, waxaana si toos ah ugu dhex taallaa dalalka NATO dhexdooda. Waxay aad ugu dhowdahay magaalooyinka Berlin, Warsaw ee badda Baltic loo yaqaano iyo wadamada Scandinavian-ka. Taasi marka Ruushka waxay siinaysaa awood uu si adag ugu hanjabo wadamada qaaradda Yurub haddii dagaal uu dhaco. Arrinta saddexaad ee muhiimka ka dhigaysa magaaladan waa hubka nuclear-ka. Reer galbeedku waxay rumaysan yihiin in Ruushka halkaas uu ku keydiyo gantaaladiisa nuclear ka qaadi karaya iyo nidaamka Iskander M loo yaqaano oo ah gantaal reer galbeedku aad ay kaga baqaan. Waxaana tani ay Kaliningrad ay ka dhigaysaa meel gaashaanbuurta NATO aad ay kaga walwalaan. Haddaba maxaa keenay xiisadda cusub? Xiisadani cusub waxay sii kordhay wixii ka dambeeyay dagaalka Ukraine iyo Ruushka, isbalaarinta wadamada gaashaanbuurta NATO iyo cunaqabataynta reer galbeedka ay ku bilaabeen ama ay ku sii xoojiyeen 2022 markii dagaalka Ruushka iyo Ukraine uu bilowday. Sanadii ugu dambeeyna Lithuania waxay xadiday qaar ka mid ah badeecadaha Ruushka ee ka soo gudbayay ama u gudbaya magaalada Kaliningrad iyaga oo adeegsanaya cunaqabatayntii midowga Yurub. Ruushkana arrintaasi wuxuu u arkay isku day la doonayo in lagu godoobiyo cadaadis military iyo hanjabaad amni. Waana mid keentay in madaxweyne Putin uu sheegay in godoominta magaaladaasi ay noqon karto sabab dagaal oo aad u weyn oo dhexmara Ruushka iyo reer galbeedka. wadamada gaashaanbuurta NATO waxay u arkaan magaaladan inay tahay mindida ma aragtay ee Ruushka gacanta uu ku hayo ee qalbiga qaaradda Yurub yacni sida loogu hayo waan xarun gantaalo saldhig military oo weer laga qaadi karo maadaama gantaalo kala duwan nidaam difaaciid iyo hub aad u badan ciidanka halkaas ama Ruushka halkaas ay kaga sugan yihiin waxa la isweydiinayaa maxaa dhici kara haddii dagaal uu qarxo haddii dagaal weyn uu dhaco wadamada gaashaanbuurta NATO waxay isku dayi karayaan inay sii wadaan go'doominta magaaladan ama inay la wareegaan Ruushkan wuxuu doonayaa inuu isku dayo jabinta go'doomintaasi waana mid keenaysa hadda hanjabaado kala duwan inay ka soo yaraan saraakiisha militariga ee dawladda Ruushka oo Ruushka hadda waxa ay ku hanjabeen in gabi ahaanba magaaladaasi scenario kasta yacni dagaal kasta oo loo qorsheeyay inay u diyaar garoobeen oo ay ka hortagi doonaan iyadoo ay ugu baaqeen wadamada qaaradda Yurub inay ka feejignaadaan isku day kasta oo ay doonayaan inay magaaladan ay ku qabsadaan waxaana jira xaalado badan oo suuragal ka dhigi karaya inuu qarxo dagaal toos oo ballaaran oo dhex mari karaya Ruushka iyo dalalka midowga Yurub
mid ka mid ah xaaladaha ugu halista badan waqti xaadirkanna waa inay sii kordhayso go'doominta lagu hayo gobolkan taasoo keeni karta ruushka inuu isku dayo inuu si xooga u jebiyo go'doominta. waxyaabaha kale aadka looga baqanaya waxaa qayb ka ah in wadamada reer galbeedka isku dayaan inay hakiyaan maraakiibta dagaalka ee dowladda ruushka isku dayaya inay magaaladan galaan ama ay ka soo baxaan. waxyaabaha ka soo kordha waan kula wadaagi doonaa likesan muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay. falanqayntii guud ahaan ee qaybtan waanaginta anigoo marcadda ayaa ku warramaya falanqaynta lamid intaan ku kulmi doono nabadgelyo.